inkastoo bani'aadamku aamin walba ololo ugu jiro ilaalinta iyo adkeynta amniga aagga udbaha noloshiisu ku aasan yihiin, haddana waxaan la yaab ahayn in la helo halaq u hamuun qaba jaritaanka halbowlayaasha nabadda. dowladda federaalka Soomaaliya oo muddooyinkii u dambeeyay dalanbaabil ahayd qaraxyo dardar ku socda oo lagu daaligayo shacabka laguna beegsanayo dagaalada muhiimka ah iyo iska difaacidda dadaalo faragelineed oo kaga imaanaya dalalka deriska iyo quwadaha dunida iyo cadaadis ay xukuumadda saarayaan shacbigii niyadda ka raacsanaa iyo xildhibaanadii hawraarsan iyo guddoon hadalkoodu ahaa ee u hamuun qabay helitaanka isbeddel hab ku yidhaahda guud ahaan Soomaaliya oo weli haabanaya humaagii hiigsanayeen iyadoo ay dhinac socdaan dulmi iyo duudsi ay shacabku isku hayaan oo ku salaysan dekanooyin la kala galay muddada ay dowladdu burbursanayd oo ay dabada ka riixayaan siyaasiyiin dana shakhsiyeed ku leh gudaha waddanka Soomaaliya. inkastoo jawiga ka daaran gudaha waddanka Soomaaliya uu yahay mid mar walba musiibo la filan karo, haddana markaad dhex tagto guud ahaan goobaha muhiimka iyo faras magaalayaasha waaweyn ee Soomaaliya, gaar ahaan caasimadda Muqdisho, waxay indhaha u qabanayaan guud ahaan shacabka oo aan si aan gaabis lahayn u gudanaya waajibaadkooda nololeed walow ay wajahayaan mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn nolosha waa caqabadda amniga. caqabadda amnigu cidda ay sida xooggan u saameysay waxaa ka mid ah dhalinyarada oo iyagu udub dhexaad u ah dhismaha dowladnimo, dhadhabidda dhaqaale iyo dhammaan dheelitirka kaabayaasha nolosha. jawiga cadaalad darrada ka jira gudaha waddanka Soomaaliya ayaa sidoo kale dhalinta ku qasbaya inay ka qaxaan qolqolladii ay ku dhasheen, qaraxyada dalka gudihiisa, qafaalashada dalalka shisheeye iyo qarraqanka badweynta ayaa ah qalalaasaha ugu weyn ay dhalinta Soomaaliyeed wajahayeen muddo rubuc qarni ku dhow. guud ahaan Soomaaliya ayaan jawi xasiloon ku jirin tan iyo markii ay dhacday dowladii Jaale Maxamed Siyaad Barre. waa anigoo Sayid Aadan Khayra Sayidka Xorriyad 24 TV magaalada Hargeysa.